السلام عليكم ورحمة الله soo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan ka hadlaynaa guryaha in la joogo faa'iidada ay leedahay ama guriga hadda joogtid waxaad qaban kartid. Xanuunka dunida ku baahay ee coronavirus waxa uu dowladaha qaar ku qasbay inay dadka ku amraan inay guryaha laga bixin. Baahi adag waxaanan ahayna aanu qofku banaanka u tegi karin. Waa dabeecad aanay dadka qaar badankoodu la qabsan. qofka hadduu caafimaad qabana waxa uu arkayaa xabsi iyo caajis, waxaana suurtagal ah cadho badan iyo dabeecad xumo inuu dadka qaar ku keeno, sida dalal badan ka dhacday, sababtayna inuu kordho furiinka lamaanaha. Haddaba si muddada gurigu inoogu dhaafto khasaaraha ugu yar ee suurtagal ah, fadlan raac tallaabooyinkan ama samee tallaabooyinkan waxaad u aragto inay ku faa'iido yihiin. Ta koowaad, wax akhri. Wax akhrintu waa hab uu qofku ku yareyn karo waqtiga uu tirinayo oo caajis iyo daal ku keeni kara, sida oo kalena uu ku kororsanayo aqoon. Raadso buugaag cusub oo waxa aad xiiseynayso khuseeya, si aad waqtiga u dhaafto adiga oo aqoon kororsaday. Talabaad, jimicsi samee. Waayo waxa uu jimicsigu faa'iido u yahay jirkeena. Weliba imika 24 saacadoodba waxaad qabanaysaa way yar tahay. Sida awgeed jirku wuxuu u baahan yahay xarakooyin badan inuu sameeyo. Awal waxaanu samayn jirnay xataa ugu yaraan fikir baynu samayn jiray, dhaqdhaqaaq aynu socon jirnay guriga ilaa shaqada ilaa guriga. Imikana waxba ma qabano. Sida awgeed culimada waxay nagula talinayaan inaanu ugu yaraan 1 saac aynu sameyno jimicsi. Ta saddexaad, wax daawo. Barnaamijyo xiiso badan iyo filimo aad wax badan ka faa'iidi karto ayaad hore waqti u waayay jirtay. Imika ka faa'iideyso oo maalintaada guri jooga ah qayb ahaan waxa aad ku qaadataa daawashada filimada iyo barnaamijyada ku saabsan mowduucyo aad adigu xiiseynayso. Waayo waxaad dejinaysaa maskaxdaada. Waxa aanay kaa caawinaysaa in aad maskaxda ka nadiifiso caajis iyo aragtiyihii afkaarta derbi dhexdooda ku koobna oo dhan. Ta afaraad, qoyska. Shaqadii banaanka guriga ahayd, bixitaankii iyo cawayskii banaanka guriga ahaa iyo baraha bulshaduba waxa ay ka mid yihiin arrimaha dilay isku duubnidii qoyska iyo isku dhawaanshahoodii. Guri joogan qasabka ah uga faa'iideyso inaad kabto wixii arrimahaasi ka xumaanayeen xidhiidhka adiga iyo lamaanahaaga, adiga iyo ubadkaaga, adiga iyo waalidkaaga, adiga iyo walaalaha, iyo adiga iyo cid kasta oo kale oo aad guriga wada joogaysaan. Waqti dheeraad ah si qoyskaaga si aad uga baxdo nolosha guri jooga ah ee cidhiidhiga ah, oo aad guriga u beddesho duni aan laga goyoon. Ciyaalkaaga la wadaag iyo xaaskaaga kaftan, sheeko wadaag iyo ciyaar iyo wixii la mid ah. aad baad mahadsantihiin intaad dhegaysateen. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad like iyo subscribe iyo share ka saartid. aad baad mahadsantahay fadlan intaad na dhegaysatay.